okay marka anu waan ku taageersanahay qofka dhalinyarada mustaqbal buu leeyahay ha gooyo ha baxo hana tago ilaahay meeshu ku tuuraa ilaahay ha arko marka waxa kaliya ama uu noolaanayo qofkii de mustaqbal buu yeelanayaa waxa kan la yiraahdo tii raba u imaanaysa marka aniga mar fikir ahaantayda kulama taliyaan qof dhalinyaro oo soo toosayo oo waxna aan baranayn dhaqaalan aan haysan inuu wadankii iska dhex joogo khasab waxay noqonaysaa inuu qori qaato ama koolo dhuuqo wada aragteen hadda wadanka Soomaaliya hadii la fiirsho 90% waxa dhuuq koolo dhuuqayaan waxay cabayaan alkal bay cabayaan taasna waxay keenaysaa amaan darrada iyo dhaqaale la'aanta keenaysa qofkii hadii amaan haysto dhaqaalahan uu iska imaan lahaa laakiin amaan darra meeshii maartay okay haddii taas aad ka badbaadin qori baad qaadanaysaa oo dadkii baad isbaaro u dhiganaysaa labadaas marka isbarbar taale marka qofkii dhalinyarada labada teebo ku biiraya marka qofka duu fikiraya marka inay tago iska noqonaysa iska haajiro oo meeshuu marka nafs oo cabiri lahaa uu iska dhaqaajiyo noqonaysa waa gartay Ibrahim su'aashan ku weydiinay waxa weeye dalkii Soomaaliya dagaalka ma socdo qaybo nabad jirta sida hadda Somaliland Puntland gobolada dhexe ee Soomaaliya intaba waa nabad ama maamul baa ka jira dhigi kara ama waa nabad oo waxa xabad ama dagaalka ma socdo ka waran ayaga dhalinyarada wadankaas jooga oo ayagoo shaqaysanaya wadankoodii nabada jooga dhalinyarada tahriibaysa ka waran ayaga bismillah cawlorta ma mahadsantahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan way kala warqaataan adduunku waxa la jira hadda global village oo noqdo hal guri oo kala noqdo ninka Muqdisho jooga ee madfaca ku socdo ee dhibka ka socdo iyo midka Puntland joogay nabad geliyo ku haysta ee shaqo ilaaha loo qabaa caafimaad ku soo kacay ee horta isku dhibay dareemayaan sababtoo ninka dhalinyarada 20 jir markuu yahay wuxuu fiican yahay in laga faa'iideysto asna faa'iideysto dhibka jira waxa horta wadanka qaybna shaqo la'aan u carareen qaybna nabadgelyo waxa arkaysaa dad dhalinyaro ah oo shaqaysta Muqdisho joog oo shaqadii ka cararaya ka tagay ninkaas wuxuu ka cararay ma aha baagamuudo ma aha laakiin wuxuu ka cararay nabadgelyo xumo laakiin midka Puntland ama Somaliland jooga nabadgelyo kama cararayo shaqo la'aan ku carara marka waxa meelaas in meel iska waafaqsan yihiin laakiin taas ay tahay xaq uma laha inay tahriibaan sababtoo ninka Puntland jooga nabadgelyo haysta jaanis uu ku fikiro oo maanta uu maskaxdiisa u shaqaysiyo haysta marka waxa ninkaas Puntland jooga kula talin lahaa war cararinne fikir la imo aad wax ku sameeyso wax ku soo saarto oo dadka lagaaga adna ku faa'iideysid عقلي إلهي كسي لحدا إلهي أقبتها مركب وأنا شكتها وأتكنتها فكر هذا حقف لكن هذا عررته يا لسه ودنك يعني ما قلد وا نك مقدش الجوجا مدفع كعرراية وحنا هذا مدفع كعررنا ما سيد مدفع على وجوجيا فكر الإمام سيد مدفع على وجوجي لها أو واحد كل ما لهين فكر كان لكن ضد كان بوساس الجوجا أما هرجيس الجوجا نبتقول كم عرراينا شغلاني كعرراين كون مقص الجوجا نبتقول حمي كعرراين مركو حنقبة كان مقص الجوجا إنه بوساس التجو كان بوساس الجوجا أنت إسكاشة كان مقص الجوجا وضد كان وذلي هنا فكر لي ماذا كو نبتقول ودن كودر أو فكر ضد كي شغل لوجو أبورو أو فكر ضد كي وحلوجو قبتلا لي ماذا لكن العرراني مرة ما قبل ولا تهريب مرة ما قبل aadan hay adiga fikirkaada ku aaban dhalinyarada tan Soomaaliland joogta ama gobolada nabadda ay kale oo iyagu taariibaya maxay tahay fikirkaaga ma santahay saaxiibkay fikirkaada uu ka sheekay macna shaqalaanta iyo waxbarashada qof wax baran shaqo ma soo kala wadagta shaqadii iyo waxbarashadii waa kala maarmin ba markii macna runta la fiirsho sax laakiin ana waxa oran karaa ka Puntland jooga oo macna taariibta u bareeray wuxuu bareeray soo lacag haysta doona lacag fara badan haysto oo wadanka ka shaqaysan karo ayuu wuxuu fiirshay dabka ka shidan koonfur dabna duu macna dariskaaga uu shidan yahay Soomaaliland naftirkeeda macna macna waxa weeye dawladda waxa weeye maamulkeeda iyo nidaamkeeda leh oo macna dii Soomaaliya macna ku tiirsan ma garad waxa oran karaa marka maamuladaas jira waxa ku doorbiday inay dhalinyarada ay tagaan Soomaaliland oo dhimisay dhalinyarada u dhimisay calula dhalinyaro fara badan baa la yahay Puntland sidoo kale dhalinyaro badan baa la yahay markii koonfur laga soo tago dhalinyarada maxay ku tageen wato inaas weydiina fiican ma shaqo la'aan bay ku tageen mase waxay ku tageen waxbarasho la'aan ana waxaan oran karaa waa dad macnaha samray oo ka samray rajada ku dhisnay Soomaaliya hadii noqon lahayd dawlad hadii noqon lahayd waxbarasho taasoo keentay ninkan wax bartay shahaadada wato inaan macnaha dalalka dariska ama wadamada carabta wadamada macnaha sida India oo kaleeto Afrika wadamada ma ugu soo sokay dariska nooca kulli aan macnaha taqaasanayn shahaadadooda taasoo qofku wuxuu kalifaysaa inuu baasaboor qaato Ethiopia ama baasaboor Kenya bacdina uu aado India waxbarasho marka ninkan wuxuu oran karaa marka Puntland iyo Somaliland macnaha wax ka sii warsugo
ayaga macnaha waxbarashadii shahaadadu qaatay naftarkeedii wax uu ku laayay صح marka ninkaasoo kale wuxuu macnaha ku fakeraya maskaxdiisa uu isleeyahay soomaaliyana koonfurtii soomaaliya dab baa ka shidan puntland iyo somalilandna dee shahaadada maanta qaatay waxaa dhici karta nin dhan kasoo baxay jamacad kasoo baxay oo wata shahaado wata dhakhtar ah oo shaqo ahayn dadka tahriib markaan fiirino runta u fiirino waa dad macnaha kasoo baxay jamacad kasoo baxay صح oo shaqo waayey dhalinyarta waxbartay dhalinyarta wax baratay macnaha waa gartay hadda puntland iyo somaliland markii la fiirsho dhalinyaro badan sanad walba waxa kasoo baxa maamul walba waxa kasoo baxa 1,000 ama 500 ka badan ma jamacad kasoo baxda صح ninkaa marka wuxuu puntland ma awoodo somalilandna ma awoodo qofka inay shaqo wada siiso 500 ama 1,000 qof صح waxaa heli laga yaabaa 10 qof inay ka hesho shaqo marka haddaan is weydiino saaxiibka ibraahim weydiiyo kunkaas oo 10 qof shaqo ka hesho inta kale xagaadiya macnaha so qofka ma wuxuu bartay so kama fikriyo qofka macnaha maskaxdiisa wuxuu noqday in hadduu waalan buu nasiib leeyahay صح marka waa inuu tahriib u qasban yahay soo malayn macnaha fikradeeda waa gartay marka taasaa keentay macnaha qofka inuu asna isbiimeeyo oo asaga wax bartay bad macnaha ku talgal u galo horta saaxiibkay waxaa suu sheegay waa runtiisu markii 500 oo arday ee jaamacad ka soo baxdo ee 10 ama 20 ay shaqo ka hesho inta kale baaga muddo noqoto horta waa dhib inteeda la eg laakiin waa saaxiibkay waxaa uu sheegaa ardaydaas oo ka soo baxday wax baratay ma awoodi waayeen inay dadka u faa'iido wax ay bar dadka uga faa'iideeyaan at least haddii wax kala qaban inta qol yar ay furtaan kuraas iyo miis soo dhigaan dadkana khidmad yar ka qaataan dadkan u faa'iideeyaan way awoodaan marka macnaha ma la dhihi karo waxbaad baratay haddaa shaqo weys iska tahriib naftaada dil qofkii wax bartay waa qofkii laga faa'iideysan wadanku u baahnaa qofkii jaahilka ay qoriyoob qaatay dagaal uba galay ninkii wax bartay dhimashadii diidan yahay marka asoo xabad inuu ku dhinta ka cararaay ama gaajo inay disha ka cararaay macnaheedu ma waxa way ha u bareer inuu bad isku rido oo bad ku dhinto hadalka wata ka dhagay qofkan shaqada u bareey macnaha u bareeyay tahriibka soo wax bartay adoo waxa tira u faa'iideeyay dadka صح oo macnaha dib ugu noqdo صح ninkan wuxuu rabaa inuu jaamacad wax ka dhigo ama secondary wax ka dhigo صح ama inuu meel wax barasho intuu galo uu tago meesha waxa ugu horeeyay nin macnaha loo keenay adeer loo keenay ugu horeeyay صح graduation graduation wasay ku aqoon badan yahay صح ninkan marka muxuu oran karaa cudurso ma geli kara ninkan macnaha taas waa kugu raacsanahay way jirtaa garabka iyo dad in lagu shaqaalaysa way jirtaa laakiin taas macnaheedu ma aha haddii adiga waxaa jira wax shaqo adi abuuran kartaa jira adaa shaqo abuuran kara adoon qof u baahan maadaama aa wax baratay qof wax bartay aan waxaa qabaa inuusan marnaba gaajoonayn laakiin asagaa wuxuu iska dhaadhicin karaa waxba ma tihid taas waa waxaan diidan aniga wax wuu yahay qof markuu wax barto oo nin wax bartay yahay oo at least wuxuu samayn karaa inuu hal qoro 2 mitir inta kireysto oo kuraasi miis soo dhigto oo boor ku qorto iyo iskuul hebel ku qorto dada uu imaanaya lacag kale intaas meesoo lacag kale asoon hay'ad shaqo u doonan qof kale oo shaqo ka heli kara marka walaalka aadan waxaan ku leeyahay ha ku dhiirin dhalinyarada inay tahriibaan la ku dhiirigeli maadaama aad wax baratay adaaba jaanis adaa faa'iido qaba waxaa jira kuwa aan wax baranin oo muxuu ahay wadankii dhib ku soo kordhiyay kuwaasaad wacyigelin u samaysid oo qoriga ah ka dhigtid iskuul intaad u furto aad wax barto ayaad faa'iidi kartaa adaaba laga faa'iideysanaa saaxiib ma hasdaarto anigu ma dhiirigelinayo dhiirigelintan macnaha anu mid hadda aan wada ma mid hore u jidhay waa sax ninka professorka baa waxaan ku yidhi macnaha ama ninkii waalidka wuxuu siinaya dhalinyarada sina guri u gadaya sax marka anu nina inta guri u gada meel u gada macnaha dhalinyarada saaxiibkii ma oran tahriib laakiin waalidkii baa wuxuu leeyahay tahriib oo wadanka macnaha nolol fiican gal hadda markuu hadhowti markuu ninkaas macnaha uu badda gal oo ku dhintana reerkii waa barooranaya macnaha markaasaa reerkii deriska asay ku dheganaa reerkii barooranaya waxaan bixinayaan dhalinyaro kale marka mid kale bixinaya ma garad taasaa marka dhiirigelinta waxaa keenta waa waalidka macnaha laakiin waxaan oran lahaa haddii soomaaliya maanta nabadeeda hagaagto iyo mas-uuliyaddeeda fiicnaato ilaahnow dhalinyarada waxaan oran lahaa jooga laakiin ma dhahayo bad gala laakiin waxaan ka wadaa macnaha dhalinyarada wax ku kalifay kalifad baan u ka hadlaya macnaha waxaa dhalinyarada ku kalifay inay tahriibaan mas-uuliyaddeeda waxaa la weydiinaya ciddii soomaaliya mas-uul ka ah ciddii macnaha waxgarad u ah ciddi aqoonyahan u ah kuwa aqoonyahankaaba aamusan oo sababta maanta waxaa ka dheereynaya ninkii macnaha jaahilka aad hadda ku tilmaamaysa baa wuxuu ka dheereynaya ninka aqoonyahanka ah nin baa wuxuu soo qaadanayaa dad buu soo aruursanaya aqoon ma leh laakiin wuxuu ka tilaab dheereynayaa kii aqoonta lahaa taasaa marka waxaa kaliftay kii aqoonta inuu asna macnaha ku fikiro ninkaanba macnaha waa ku horboodayaaye adigu maa waddanka ka tagtay meel wax ka noqonaysid oo la jaan qaadi kadhid maa tagtid buu ku fikiraya marka taasaa keenaysa dhalinyaro inay macnaha tahriibto misna macnaha ay ku dhiirato waxaa keenaya waxaa weeye rajabeelka maanta jira waa gartay